hooyo Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeedna waayo yaa hooyo aminkaygana ma sugnaani xaali gurigayga ma hooyan habeen horena gurigayga uma hooyan inkastoo dambiilihii falkan geystay uusan dhacdadan foosha xun ku metelin qaranka ama cid kale haddana hooyo Firdowsa oo si dirqi ah ku badbaaday iyo wiilkeeda Cabdisalaan oo dhibka la kulmay waxa ay qabaan tabasho ah in lagu dhibaateeyay shaarka qaranka loona adeegsaday hub xoog iyo waqti ay xaq u lahaayeen in iyaga lagu hooyo aniga oo sidaan markaan arkay nimankan labada nin oo hubeysan markaan arkay baan aniga halkan ayaan jiiday daaqadan furtay shabaqana meeshii iga dhagana shabaqana baxsanayay waana qaylinay ugu aaminsanayay xabadaas meeshaas ku dhacday oo soo riday waa dhacdo xanuun badan hooyo Firdowsa oo ah danyar halgan adag ugu jirtay korinta 3 caruur oo ay kali ku tahay kuriimadooda aabahoodna uu la xanuunsan yahay xanuunka dhimirka waxa xilli saqbar ah gurigeeda xoog ugu galay askari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dawladda federaalka kaasi oo ugu dambeyn kufsaday wiilkeedii curadka cadadaas waxay ahayd habeenkii sabtida oo ahayd bisha 12 taariikhda anoo gurigeyga jiifo 8 saac tahay habeenimo aan lagu soo weeraray laba nin oo iskarta dharka militariga xiran haday soo weerareen aniga shanqadaan maqlay hadaan maqlay nicla yaraan haystay waa ifiyay hadaan ifiyay shanqadi waa la joojiyay aan jebinayay daaqadii baan ii soo fuqday aniga tan yar oo markaan ii soo kacday dirshadan kala booday intaan dirshadii kala boodin oo meesha aan fujinay waxa dhacday xabadii ugu aaminsiinayo banaankoona taagan yihiin labada iskari banaankii taagan yihiin xabadii la soo riday oo lagu aaminsiinayo waan aamusay markay xabadii dhacay tiri ee meesha qaac tiri asigadeedii soo daadatay ana meeshan aniga gabadhii ka boodnay markaan arkay inaan waxba i gaarin aan gabadhii la cararay daaqadan aad arkaysaan ayay hooyo Firdowsa kala soo baxsatay gabar ay dhashay oo 8 sano jir ah oo ay u arkaysay in iyadu ay kaga nugushahay dhibka dhici kara wiilasha markaasi gudaha qolka xilliga falku u dhacay ay uga soo carartay iyada oo waliba markaasi rasaas uu ku furayay askarigii halkan falka ka geystay gurigan soo weeraray inkastoo alla uu ka badbaadiyay qoyskan in rasaasaas ay dhibaato u geysato adinkii ugu dambeeyay haduu dhacay waa la soo raacay wiilka baa nin kale saa looga kor qaaday kii kalena maan ugu imaanin iyo qorigii iyo sakiin iyo kabihiisii aan meesha laga bixiyo wiilka ninkana waa qaawanaa intaas uu joogay surwaalkii ciidamada boomihiina wuu xirnaa intaasna surwaalka u taagnaa kabihiisiina meeshana laga qaaday qorigana meesha laga qaaday tooriyada hadaan bilownay waa la soo bixiyay mootaal saar mootadii aan ku hubsanay saldhiga dhaqaatiirta isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo loo geeyay wiilka ayaa xaqiijiyay in wiilka fal kufsi ah loo geystay sida ay inoo sheegtay hooyadiisa saasi hooyo arinto dhacday haddana maanta CAD isbitaal Madiina la geeyay isbitaal Madiina hooyo waxa la yiri wiilkan ninkan wuu fara ku xumeeyay sidii baan la soo gudbiyay misna CAD aan loo gudbiyay CAD aan ninkii qaabishay maanta oo xareysay walow uu xiran yahay ninkii falkan geystay hooshana ay gacanta ku hayaan hay'adda CID-da iyo sidoo kale hay'adaha ammaanka ee dalka haddana Cabdisalaan yare ayaa dhibana la ah falkan ka baxsan diinta anshaxa iyo dhaqanka suuban ee loo geystay waxaana hooyadiis ay u dalabtay in wiilkeedu uu cadaalad helo ninka hadda maadaama uu ii xiran yahay hadda maanta CID-da igu jiro waxaan ku faraxsanahay inaan wax la ii qabto oo dawladda Soomaaliya wax ii qabato hooyo Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeedna waayo yaa hooyo